sideed qof oo Soomaali ah ayaa muddo ka badan sanad waxa ay ku xiran yihiin xuduudda u dhaxaysa dalalka Turkiga iyo Iran waxaana dadkaasi isugu jiraan qaar xiran 8 bil kuwa xiran 9 bil iyo qaar xiran sanad sideeda qof shan ka mid ah waa dhalinyaro oo rag ah saddex ka midna waa dumar gabar ka mid ah dadka ku xiran waddanka Iran ayaa la sheegay inay xanuunsan tahay waxaan hadda laga soo wareejiyay xabsiga ku yaala xuduudda Turkiga iyo Iran waxaa loo la geeyay magaalo u dhow caasimada waddankaasi ee Tehran waxaana xukunkii ay dhameysteen dawladda Iran ee ku wargelisay in kaliya la deyn doono markii la helo dawlad matasha ama ka socota waxay dalbanayaan in dawladda Soomaaliyeed ay Iran kala hadasho sideedmada dadkaas waxaan la hadlay laba qof oo ka mid ah dadka ku xiran xabsi ku yaala dalka Iran oo gabar iyo wiil waxay ka sheekeen doonaan xaaladda ay wajahayaan waxaan hadalka ku hormaraya Deeq Maxamed Cali isagoo igu dhiibi doona gabar la yiraahdo Fatix Shariif horta wallahi waxaan laga soo qabtay maxaa la jiray in xuduudda Turkiga iyo Iran u dhaxaysa ayaana laga soo qabtay anagoo laakiin ma badeen markaas laba qof Soomaali aan ahayn waxaan lagu soo xiray magaalo xuduudeed ilaa Oromiya nasiib wanaag maxay anagoo ku xiray ilaa muddo 2 bilood waxaan loo keenay Soomaali kale haddana wiila haddana anagoo 4 bilood kala sii xirnay haddana waxa la soo dhameystiray 8 hadda dhalinyarada aan ku wada joogna xabsiga maaliba qayb baan lagu keenay xabsiga ma gartay inta waxa laga soo qabanay xuduudda marka xagee safarkiina socdaalkiina xagee ku wajahna markii idin la qabanay Turkiga ku wajahna xuduudda Turkiga laga soo qabtay Iran inta u dhaxaysa Iran gudaheeda maxaa ka doontay ma Iran ka bixiseen mise marin bay idii ahayd xagee markii hore ka timaadeen walaal markii hore waxaan ka baxnay maxay Muqdisho ka soo duulnay targetkeena wuxuu ahaa Turkiga waxaan ku soo degnay Kurdistaan aan ku soo degnay Kurdistaan wixii ka dambeysay wax diyaarada maan helnaa waxaan soo marnay xagga dhulka ah Iran markaan soo galinay xagga xuduudda dhulkaan ka soo galnay Iran markaan soo galnay Iran soo galitaankeeda wax ay qabada aan la kulanay maysan jirin waa jirta inaan Turkiga si galna caqabad la kulanay xaggaas inay qabtaan ciidanka mitayga ee dalka Iran Kurdistaan waa gobol Iraq ka tirsan Soomaa oo Iran ku dhow xuduudeeda Iran ku dhow xuduudeeda waa Erbil waa halka macna goolistaag hadda codsanaysa laakiin wali aan la siinin marka Kurdistaan loo uga baxdeen Iran gasheen Iran waxa doonaysan loo uga baxdaan oo Turkiga ay gashaan inaan Turkiga si galaan dooninaha Turkiga oo si galaan xaggaas laga soo qabto marka Soomaalidiina sidii habeen oo baraf xoog leh u daa way Soomaalidiina sideed qof ah ma ku jiraan hablo way ku jiraan 3 gabdhood iyo 5 wiil baan walaal 3 gabar iyo 5 wiil ma is waraysateen xagee ka kala baxdeen ma Muqdisho gabigeen ma soo gobolka wax ka mid ah ku jira wallahi hal wiil baa jira oo Kenya ka soo baxay aniga kula hadlaayo oo ka yimi maxaa la jiray dhanka Hargeysa oo targetkii Hargeysa aan ka soo baxay inta kale waa wada Muqdisho ka soo duulay laakiin aniga Hargeysa ka soo duulay hal wiil oo Nairobi ka soo duulay noloshiina iga sheekay marka maxaa dhib ah qabtaan hadda wallahi xaaladda xabsiga laga ma sheekeenayo maanta xaaladda xabsiga xaaladdan ku jirno waliba haddana xabsiga waddankaaga uusan xitaa ahayn oo xabsi haddana shisheeya uu yahay xaaladda wallahi xagga jiif xumo iyo cunto xumo labadaba darisaa la nahay walaal labadaba darisaa xagga cunto xumo iyo jiif xumo labadaba waliba caafimaadka xitaa xagga caafimaadka xitaa aad baa uga liidana waliba gabdhaha qayb mid ka mid ah waliba dhiiggeeda aad u daadanaya xaalad xanuun haystaa wiil ma idin la hadleen oo qolada in haya oo duruufiina ma ku wargeliseen wax ma ka qabteen walaal duruufeen waan u sheegnay waxay noo sheegeen in maxkamadda aan soo xag maxkamad xitaa aan soo dhameysanay iyo xabsi waxa la yiraahdo aan ku soo dhameysanay gobolkii hore ee lagu xiray ee gobol xuduudka ah Oromiya haddaan ku xirannahay caasimada meel kiiloomitir ahaan u jirta 8 kiiloomitir oo Premier la dhahayo markayna keenay waxay noo sheegeen in maxkamad iyo xabsi baan ku soo dhameysanay meeshii hore aan ku xirneen halkan aan nahay kaliya dad macnaha dawladooda ka war sugaya in macnaha ay ka kaxayso oo halkan ay ka saarto dawlad badan aan wada xirneen ay ka mid yihiin maxaa la jiray Senegal Gambia Nigeria maxaa la jiray Cameroon kulligood dawladooda ka wada saaray halkan laakiin anaga waxay yiraahdeen idiga waxa sugaysa waa dawladin kale inay waa idinka saarto marka gabadha hadda aad wax damaanado dawladina way gabadha aad leedahay way xanuunsan tahay maxaa ku dhacay sidee loo hayaa
walaalayn xanuunkeeda waxa waaye waxa ku jira garabka waxa ku jira laba qoryahan macalin kala fogeynay waxa la jiray qoftu waxa weeyaan waa qof ilmo soo dhalay oo saddex carruur ay soo dhalay saddexdaba waa lagu soo qalay qalinkaas awgeeda waxay u gashay labadaas qoryo inay carruurta ay kala fogeyso si ay mar dambe aysan wax u qaadin nasiib wanaag markay wixii baa dheedkii baa ka dhacay waa inta badan xanuun badan ku keenay wadankan waxay yiraahdeen hadda dhakhtarna intaan ku qaylin maalintan u dhaga xitaan oo iska aan u ooyin runtaan kala hadalay dadka dhakhtar u kacay waxay yiraahdeen markii la soo baaray xaaladda la soo gaaray xiriir anaga kama saari karno waxaan garbaa ugu jira muddo hore ugu dambeysay dalkan laga isticmaali jiray wallahi xanuun mar haddii meesha caafimaad daro tahay cuntadeena xun tahay jiifkana xun yahay dhammaan dadka kulli waxaan isdhihi karaa inay wada xanuunsan aniga kula hadlaya madaxaas ay xanuunay oo turtur hawaris maraa madaxa igu xirno madax xanuun awgiis ma xanuun mar haddii fikir deeftay waaya marka Soomaaliya kulli Iran xiriir lama lahan bari dhexe eriyeen safaaradna kuma lahan sidee ayaa isleedihiin wax way idinku qaban kartaa dawladda Soomaaliyeed wallahi waxaan anaga markaan hadii qiyaas ahaan waxaan isleenahay waxaan maqlay xitaa maalin barbixadaas in qolo Soomaaliya halkan laga sii daayay dawladda Soomaaliya waliba ka sii daysay anaga waliba safaarad ku lahayn marka waxaan isleeyahay hadii isla xiriirkii labaad hadii mar la soo sameeyo in waa laga saari karaa amisanahay waalidiintiina mid ka warqabaan waalidiintiina waa naga warqabaan inaan u xiranahay Iran marka imise way hadda qofkiin ugu dheer muddada u xiran yahay kulligeen midka ugu dheer wuxuu xiran yahay waa 12 bilood midka ugu yarna wuxuu xiran yahay 8 bilood yaa ku dhow oo aad dhiibi kartaa oo ila hadli kara waxa ay dhaween waan ku dhiibi karaa maxaydan gabaran waan ku dhiibi karaa fadhi kale nada السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة فتحي صدو مقعاق إيدا مصر ولا ميغا waa Fatxi Shariif Huseen Cali waa radio kulmiye toosa ugu jirtaa waa lagu maqlayaa noloshiina iga sheekay dib badan idin haysta ayuu ii sheegay wiilka horeeyay maxaa ku dari lahayd intii uu sheegay walaal nolosheena aad iyo aad u xun tahay u liidataa aad ugu dhibaataysanahay xabsigan xagga cuntada waxaan ka nahay ebra ka nahay oo waa ku dhibaataysanahay cunto fiican kuma helno waa gartay caafimaadkan sidoo kale inta aad ayuu ugu liitaa oo maxay ahayd gabar ayaan ugu jirta aad u xanuunsan oo mar walba maxay ahayd dhiig baxayso sidoo kale inta kulligeenba caafimaadkeena taa ma ahan aniga sidoo kale inta waa xanuunsanahay neerba ayaa qabaa wax daawo ahna lama siiyo oo nalooma ogolaanayo xataa in aan kiniini doonano in aan banaanka u baxno xataa isbitaal mana loo ogolaanayo aad ayaan u xanuunsanahay gabdhaha iyo wiilasha ma hal meel ku xiran yihiin waa kala duwan yihiin maya waa kala duwanahay markii aan ooyno aan dhahno wiilashaan doonayna inaan la hadalno bisana loo ogolyahay xagee ka baxda markii hore aniga waxaan ka baxay Muqdisho ayaan ka baxay kaliya miyaa ahayd mas'uul lagu la socday aniga waa leela socday gabadh ayaa ila socotay laakiin gabadhii ma aysan soo bixin ayada waa gartay way labada gabdhood kale go ahead wadahaye labada gabdhood kalena sidoo kale ayagana waxaa ku kulanay dariiqa ayaan ku kulanay maxaa ka codsanaysaa dawladda Soomaaliyeed madaxdeeda haday ku maqlayaan maxaa baaqa u jeedinay waxaan ka codsanayaa inay xabsiga naga saaraan sidoo ugu dhaqsiyaha badan ugu soo gargaaraan meeshaan aad iyo aad ayaan ugu dhibaatoonay oo ay hadda sanadka wax yar ayaa nooga dhiman dawladda waa la hadalnay ilaa haddana wax noo qabta ma jiraan Fatxi Shariif Huseen waxa ka horeeyay wiil yiraahdo deeq labadoodu waxay ku xiriyeen dalka Iran waxayna ka hadlayeen dhibaatada xabsigaas ku haysata